السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muhiimadda waa dambaroolkii maanta waa maalintii sagaalaad ii socotaa. kuley wejiga qofka si fiican u fiirinayo wuu dareemi karaa. meeshaan waa wejiga normalka ahay, intana waa meel caddaatay oo madow soo galay, intana sidoo kale waa meel caddaatay oo madow soo galay. muhiimadda waxaa ay baalka markaa marsanaysid inaad serious ay kaa tahay, waa si serious u isticmaalaysid. meesha madaxaaga tinta ka maqan tahayna adigaa yaqaano. soo marka aniga hadda salaxaha waa u soo jeesanayaa, laakiin marka hore inta tinta khafiifka iga tahay tinteeda inta ugu darneed iyo dhexdan intaasaa ugu roonaanaa marka hore. marka intaas ugu roonaado qofka kuley waa maqlayaa, qofka marka aamuso dhawaaqeeda waa maqlaya si ay u dhex maraysa shallada. muhiimadda intaas waa laanno mana ku dhajinooy dhaab ku siinooy, mana ka qaadooyo khafiif kor ugu dhigooy. taasaa muhiima marka baasha inaad saas u dareentid. soo marka hore markaa saas u marisid kadib haddana aa dadab ka dhigtid. intaa kasoo bilaaba si ay u fududaato. kadib meeshaas ku keenaa. hadda waay marka salaxaha marka hore saasaan marinaa, waa caadi. toosaan marinaa, kadib haddana saas u marinaa. xoogaa kaamirada gacanta ku haya waxay la nuuxsanaysa. dhinaca kale haddana sidoo kale. haddana balbalaar. kuley qofka arkaya wuu dareemaya way isbedeshay. meeshaas jirka way ka bedelantay. inta jirkeyga naturalka waa caadiga ah, laakiin jirkan wuu isbedelay. already wuu isbedelay, madow waa soo galay. waana dareemaya haadxaad inay soo yeelato aniga ahaanteyda xataa. marka meelaha tinta ay ka maqan tahay waxa waaye khafiifka zaa'idka ah. dambaroolka inaa ugu roonaatid waaye. waana kala waaweyn yihiin dambaroolka sida loo malaynayo maaha. midkaan hadda isticmaalaya adiga 0.5 waaye, asigoo 0.3 aa jira, aada u yaryahay kaas. soo marka 0.5 ka isticmaal. haddii 0.5 ka kugu yaraadana isticmaal 1.0 0.1 aa jiro, waa isticmaali kartid. mahadsantihiin. now waxa waaye time is saliidda. haddii aa ka faqiilaysid adiga waaye, haddii aa ugu roonaanaysidna adiga waaye. mar walba saa saliidda u marinayo waa dareemaya xafafkeeda, laanno maalin walba duleel cusub ay furaysaa. markay duleel cusub furto waa dareemaysaa xafafkeeda. meesha ugu roonaatid dambaroolkane adigoon wax kale isu wareerin, saliidda aan effectigeedii waxaada raadinin, koob waxaa ka dareemaysaa xafafka ay keenayso. soo marka ugu yaraan ilaa 3 minute 4 minute ama 5 minute inaa madaxa saas ugu masaajiisida laga rabaa. saliidda tinteeda waa kaaweelada ma jeedaa, saliidda gacanteeda ilaa saliidda qalila ay ka naqataa laga rabaa. madax oo dhuuqo inaa ku wadid. soo madaxa inaa xoog ugu rugtid iyo inaa caadisaan tartiib u tiraadid wax macnaa ma samaynayso. labadooda isku mid laha. muhiimadda ina masaajada lafta ay saliidda gaarto. safka ugu dambeeya waa marka hadda. xogaa hergebka meelahan ka maqan waan ku bilaabay, laakiin insha allah seriosiga ma ahano hadda. muhiimaddeeda koowaad waxa waaye, waa tahay ma jeedaa cadkaas waaye. meeshaas cad inay soo buuxsanto, salxahan ay soo xirmaan, intan ay soo xiranto, intan ay soo buuxsanto. hadda already tin la shanlayn karaa ku taalo.
saas markaa dhaho awal ma arkayni tinteydaas ma arkayni ani laakiin hadda maasha allah tin la shanlay karaa ku taalo way soo madoobaatay jiddo markaa saas dhaha xataa way soo seexanee ma lahayna weli waxaas insha allah intaa in ka badan oo rajeynaa meelashaana weli ugu daran halaha hore qaafii zaaid ay ka tinteyda laakiin hadda maasha allah way soo madoobaanaysaa marka waa mahadsantihiin socod wanaagsan koraa la iskala socda insha allah haddii la yidhaah waa idin salaamay peace and love والله جانس وأقول لي تركي كورونا والله تركي كورونا كفاية مركب